kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV ku soo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu doorka roona waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Roble oo ku wajahan dalka Kenya iyo qorshaha dawladda Kenya ay leedahay oo la ogaaday Al-Shabaab oo lacag fara badan ku soo rogay dhismaha wadada Jowhar iyo Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya oo war rasmi ah oo cusub ka soo saartay cabashada beelaha deegaanka gobolka Hiiraan midowga musharaxiinta oo codsi u gudbistay maamul goboleedyada dalka kadib kulan ay ku yeesheen Muqdisho intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu door corona warka yaga aatan ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan Ra'iisul Wasaare Roble ayaa ku wajahan dalka Kenya xilli la ogaaday qorshe ay damacsan tahay dawladda wadanka Kenya Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ku wajahan yahay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi caasimadda u ah waxaana haatan la sii ogaaday qorshayaal ay damacsan tahay dawladda Kenya kadib safarka lama filaanka ee Ra'iisul Wasaaruhu uu ku tagayo Ra'iisul Wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa safar waxa la filayaa inuu ku tago magaalada Nairobi saacadaha soo aadan iyadoona halkaasi uu jeedka u tagayo lagu sheegay inuu wada hadal la yeelanayo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta Ra'iisul Wasaare Roble ayaa casuumaad rasmi ah ka helay madaxtooyada wadanka Kenya xilli xiisad dagaal ay wali ka dhex jirto dawladaha Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya isla markaana xaaladoodu muddooyinkii dambe aysan wanaagsanayn dawladda Kenya ayaa xuduudka ka xiratay Soomaaliya maalmo kadib markii xukuumadda Muqdisho ay ku dhawaaqday in ay xiriirkii labada dal soo celisay kadib wada hadal ay gaareen dawladaha Soomaaliya iyo Kenya isla markaana ay ka shaqeysay Qatar dawladda Kenya ayaa waxa ay dalbatay in loo fasaxo qaadkii Kenya ee tagi jiray gudaha Soomaaliya isla markaana la geyn jiray suuqyada waaweyn ee magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada Soomaaliya waxaana ay tilmaantay maadaama ay dhaqaalaheedu ku xiran yahay isla markaana uu ku tiirsanaa qaadkaasi ay doonayso in qaadkeeda la geeyo Soomaaliya isla markaana la fasaxo balse dawladda federaalka Soomaaliya ay dalabkaasi ku gacan saartay haddaba xogo hoose oo la helaya ayaa waxa ay sheegayaan in safarka Ra'iisul Wasaaruhu uu ku qatomo arrimo dhowr ah ila ku dhow xafiiska Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegaya in kulankan uu yimid kadib markii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ay ku kulmeen magaalada Djibouti ee caasimadda wadankaasi Djibouti halkaas oo ay ka qayb galeen caleemasaarka madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele kadib kulankaasi ay wada yeesheen ayaa waxaa jiray xiriir dhow oo labada dawlad soo dhaxmaray Soomaaliya ayaana la fahansan yahay in ay doonayso inay xiisada qaboojiso isla markaana ay wada hadal ku xaliso halka dawladda Kenya ay joojisay dhammaan safaradii duulimaadyada ahaa ee Soomaaliya ka tagi jiray ee Kenya tagi jiray iyo kuwa kale ee Soomaaliya imaan jiray ee Kenyaanka ahaa iyadoona shuruudo adag ku xirtay taas oo ku aadan in loo fasaxo ganacsiga qaadka ee suuqyada waaweyn ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa dawladda Kenya hordhigi doona in ay fasaxaan duulimaadyadaas taas oo bedelkeeda dawladda Soomaaliya iyaduna ay qaadan doonto in qaadkii la geyn jiray Soomaaliya ee Kenya la fasaxo haddaba arrinta su'aasha ku gudban ayaa ah arrinta badda xogo hoose oo leelayo ayaa sheegaya in Ra'iisul Wasaare Roble uusan marnaba ogolaan doonin in gorgortan iyo wada hadal laga galo arrinta badda iyo qadiyadeeda dacwadda taala maxkamadda ICJ inkastoo madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in dalalka caalamku ay cadaadinayaan heshiiska haddana Ra'iisul Wasaare Roble ayaa la soo sheegaya inuusan Kenya kala hadli doonin arrimo ku saabsan qadiyadda badda dhawaan saxaafadda Kenya ayaa warar been abuur ah oo ay tabinaysay waxa ay ku sheegtay in heshiis labada dawladood ay ka gaareen walow wararkaas ay gaashaanka u daruureen xukuumadda federaalka Soomaaliya isla markaana ay sheegtay inaysan jirin wax wada hadal oo Soomaaliya iyo Kenya ay ka galeen arrinta badda Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka dalka ayaana arrinkaasi gaashaanka u daruuray su'aasha kale ee la isweydiinayo ayaa ah muxuu yahay doorka dawladda Qatar ay qaadatay maxaas ay kala socotaa dawladda uu hogaamiyay madaxweyne Farmaajo dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in xiriirkii Kenya ay soo celisay balse dhexdhexaadin ka timid dawladda Qatar ay arrintaasi ku timid xogo la helayo ayaa sidoo kale sheegaya in dawladda Qatar ay wali wado dhexdhexaadinta labada dhinac iyo sidii heshiis waara lagu gaari lahaa
laakiin warar kale oo hoose ayaa sidoo kale tilmaamaya in qorshaha dowladda qatar uu yahay in xitaa laga wada hadlo arrinta qadiyadda badda maadaama ay shirkado maalgelinayso ay tahay shirkad shidaal oo laga leeyahay waddanka qatar. dowladda Soomaaliya ayaa la soo sheegayaa inay diidan tahay qorshaha ay wado dowladda qatar, waxaana xukuumadda Soomaaliya ay sheegtay in arrintaasi ay u aragto mid xadgudub ah. madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si dhow arrintan isha ugu haya, waxaana uu ra'iisul wasaaraha ka dalbaday inuusan wada hadal la yeelan dowladda Kenya. sidoo kale warar hoose oo madaxtooyada Soomaaliya laga helayo ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha uu Kenya uu kala hadli doono arrinta ku saabsan dilkii loo geystay Allah u naxariistay ganacsade Bashiir Maxamed Xuseen oo dhawaan lagu dilay dalka Kenya si arxan darro ah loo dilay. marxuumka ayaa dowladda Kenya sheegtay in xiriir dhow uu la lahaa maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. sidoo kale warbaahinta ayaa warisay in lacaga badan uu ku taageeri jiray dowladda federaalka Soomaaliya. hay'adaha sirdoonka Kenya ayaa tabinaya in dilka marxuumka uu ahaa mid la sii qorsheeyay. Soomaaliya ayaana aaminsan in saraakiisha dowladda Kenya ka tirsan in falkaas ay ku lug lahaayeen isla markaana si siyaasadeysan loo dilay marxuumkaasi. Al-Shabaab ayaa lacaga fara badan ku soo rogay dhismaha jidka xiriiriya Muqdisho iyo Jowhar. warar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab lacaga fara badan ka dalbadeen shirkadda qaadatay qandaraaska lagu dhisayo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar oo dhawaan uu bilowday dhismahaasi. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay dalbadeen lacaga $100,000 ah oo ay sheegeen in ay tahay cashuurta dhismaha wadadan, iyagoo sidoo kale in haddii la siin waayo ay ka geysan doonaan weeraro qaraxyo oo ay la beegsanayaan shaqaalaha iyo shirkadda wadda howlaha lagu dhisayo wadadani. wararka ayaa sidoo kale tilmaamaya in dhowr jeer ay Al-Shabaab la soo xiriireen shirkaddan isla markaana ay ka dalbadeen lacago aysan cadadkeedu yareyn, iyagoo dadku ay ugu yeereen meelo ay ka mid yihiin deegaano dhaca gobolka Shabeellaha Hoose si ay loo xaqiiqsado in ay yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab xubno ka tirsan. dadka soo wacay taleefanada isla markaana lacagaha ka dalbanayay waxaana laga codsaday in qolada hawsha wado ay isku laabtaan jawaab waafiyana ay soo siiyaan, sida warar hoose iyo xubno magacyadooda la qariyay ay tilmaameen. xogta ayaana ku saabsan arrinta mashruuca lagu dhisayo wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar oo lacago Al-Shabaab ay haatan ku xireen dhismaheeda, waxaana la sheegay in xogta ku saabsan arrintan laga helay saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana Al-Shabaab ay sheegeen in dhibaatooyin dhowr ah ay ka geysan doonaan wadooyinkaasi isla markaana ay burburin doonaan haddii aanan lacagahaasi faraha badan lagu soo wareejin. dhismaha wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar ayaa bilowday toddobaadyo hor, iyadoona haatan meel bilow ah ay marayso, ayaana waxa Al-Shabaab ay ku soo aadayaan in hanjabaadyo dhowr ah ay u gudbiyeen shirkadda wadadan dhisaysa. Al-Shabaab hore waxa ay isoristaag ugu sameeyeen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, iyaga oo qaracyo dhowr ah oo qasaare kala duwan geystay halkaasi ka fuliyay, iyadoo sidoo kale markii dambe lagu dhisay si dowladdu awood ay ugu maquuninayso una ekeyd in ciidamada dowladdu ay weeraro dhowr la kulmeen kuwa kalena ay iska caabiyeen. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war rasmi ah oo cusub ka soo saartay cabashada ka timid beelaha dega gobolka Hiiraan. xukuumadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa ay shaaca ka qaaday in wax laga bedeli doono cabashada ka taagan beelaha degan gobolka Hiiraan, kuwaas oo cabasho ka qaba sidii lagu soo dhisay maamulka Hirshabeelle kadib khilaafkii ka dhashay isqabqabsi xoogana oo awood qaybsiga maamulkaasi ku aadanaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka go'an tahay xal u helidda cabashada ay qabaan dadka ku dhaqan reer Hiiraan, isla markaana dowladda Soomaaliya ay arrintaasi si rasmi ah ay u gudagali doonto. Al-Cadaala ayaa tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyn doonto sidii maamulka Hirshabeelle uu shacabkiisa reer Hiiraan ula shaqeyn lahaayeen, isla markaana loogu qalcin lahaa in cabashadooda la xalinayo, isla markaana muddo dheer ay qaadatay isqabqabsiga ka jira gobolka Hiiraan ee ku aadan arrintii uu ku soo baxay maamulka cusub ee Hirshabeelle oo uu hogaamiyo Cali Guudlaawe Xuseen oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ee haatan jira. xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay kaashan doonto golaha wadatashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir si diyaar garow xoogan arrintan loogu galo, isla markaana jawaab looga bixiyo tabashada ay qabaan dadka reer Hiiraan.
beelaha dega gobolka Hiiraan ayaa si aad ah iyagu cabashooyin xooggan uga muujiyay doorashadii uu ku soo baxay Cali Guudlaawe taas oo madmadow fara badan laga muujiyay isla markaana dawladdu la sheegay in awood ay ku maquunisay iyaguna aysan marnaba aqbali doonin arrintaasi. ugu dambeyntiina midowga musharaxiinta ayaa codsi u gudbistay madaxda dowlad goboleedyada dalka kadib kulamo ay ku yeesheen Muqdisho. kulamo saacadii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ku yeesheen xubnaha midowga musharaxiinta, kulamadaas oo ahaa kuwa ay u sameeyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxa ay markaasi ahaayeen kuwa casho sharaf ay ugu sameeyeen isla markaana ay ku sagootinayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo Muqdisho iyagu u yimid ka qaybgalka shirka wada tashiga qaran. musharaxiinta ayaa madaxweynayaasha maamul goboleedyada waxa ay kaga mahadceliyeen doorkii ay ka qaateen xalinta khilaafka ka taagnaa heshiiskii arrimaha doorashooyinka dalka ee lagu saxiixay Muqdisho. gudoomiyaha midowga musharaxiinta ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo isagu munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in madaxda dowlad goboleedyada ay door weyn ka qaateen isla markaana ay taariikhdu xusi doonto, isagoo sheegay in ay ka badbaadiyeen qalalaase siyaasadeed oo uu dalku gali lahaa iyo sidii loo qaban lahaa doorasho wada ogola oo dalka ka dhacda. waxaana uu sidoo kale tilmaamay in madaxdan ay sameeyaan dadaallo kala duwan oo door weyn ay kaga qaadanayeen isla markaana ku dayasho mudan. waxaana uu sheegay in xal buuxda haatan laga gaaray xaaladii iyo xiisadii siyaasadeed ee ka taagneyd magaalada Muqdisho. Sheekh Shariif ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday in shacabka Soomaaliyeed ay muujiyeen dareen dowladnimo ayna ka soo gudbeen dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacayay, waxaana uga mahadceliyay cid kasta oo arrintan ka qayb qaadatay oo madaxweynayaasha dowlad goboleedyadu ay qayb ka ahaayeen. midowga musharaxiinta ayaa madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle, Galmudug ka codsaday inay fuliyaan heshiisyadii la gaaray arrimaha doorashooyinka, waxaana ay markaasi sheegeen in loo baahan yahay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka dalka ka dhacaya. gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii xusay in ay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uga mahadcelinayaan sidii xilkasnimada ahayd ee uu doorkiisa u qaatay, waxaana uu sheegay in musharaxiintu ay wali garab taagan yihiin isla markaana ay wadi doonaan dadaalada ay ku bixinayaan ka shaqeynta doorashooyinka dalka ka dhacaya. gudaana daawadayaal warkii aad kala socoteen Warsidaha TV oo naga intaaye nabadgelyo.